إنا لله وإنا إليه راجعون وحين ولي لنولنهي murugadii ka ratibantay qaraxii lala beegsaday dadkeenii Soomaaliyeed isugu jiray ardayda jaamacadeed ganacsatada ciidamada ammaanka dadkii suuqleyda ahaa rag dumar caruur waayeel caruur ciroole taasoon Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu weydiisanayno inuu shahaadadooda aqbalo innagana uu inaka siiyo sabir iyo iimaan iyo ajir uu inaka siiyo runtii waxay ahayd musiibo aad iyo aad u weyn waxaana uu ahaa xasuuq arxan darro ah oo aad u xanuun badan oo xambaarsan ayna ka muuqato cadowtinimo iyo arxan darro ana ka suurtoobin qof diin iyo damiir leh tacsidaas kadib waxaan tacsi gaar ah u direynaa shacabka iyo dawladda Turkiya oo gurmadka nala garab taagnaa tan iyo in muddo ah oo muwaadiniintoodii inoo soo gurmaday oo aqoonta noogu soo gurmaday oo farsamada noogu soo gurmaday oo kaalmada noogu soo gurmaday meesha iyada ah ay iyaguna ku shahiideen Ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu iyagana shahaadadooda aqbalo ehelkii iyo shacabka reer Turki aqribadii asxaabtii ay ka tageen samir ajri iimaan uu ka siiyo iyo ciwad khayr qaba dhamaantood inta kadib walaalayaal dhacdooyinka noocan markay dhacaan runtii waa laga xanuunsadaa waxa laga soo jeediyaa baaqiya laga soo jeediyaa muddo ayaa laga hadlayo la hadal hayaa hayeeshee waxaynu u baahannahay hadal haynta noocaas inay u gudubto ficil baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay inaan u talowno in la isla xisaabtamo oo la isweydiiyo yaa dambi ku leh yaa ku eedeysan yay ahayd xilkiisa iyo mas'uuliyadiisa yaa gabadh falka sameeyay yaa ka gaabiyay shaqadiisa yaa meeshii uu ahayd inuu taagnaado aanan taagnaanin yaa isagoo taagnaa aanan xilkiisa gudanin garanay cidda dambiga geysatay oo shabaab ah laakiin ciddii dambigaas waardiyaha ka ahaan lahayd oo inagoo la isku kaaya daray ah haddana markii nala kala qaado dawladda iyo ammaanka sida khaaska u sii khuseeya waxaynu u baahannahay inaynu su'aal isugu laabanno waxaynu u baahannahay inaysan si aysan dib dambe aysan u dhicin laga qaato go'aan ummadeed laga qaato sidaa daraadeed ayaa baaqiyadii ayaamaha kan laga soo jeedinaya arrintaasba waxaan doonayaa inaan ka dabageeyo siina adkeeyo baaqi kan soo socda baaq guud waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ay qabsadaan ku midoobaan dantoodii iyo jiritaankoodana ay meel uga soo wada jeedsadaan isuna taagaan ka hortagga cadowgaas horarka ah ee aanan waxba u hambeynaynin oo aanan ku tixgelinaynin qaraabanimo iyo ballantoona aanan ku tixgelinaynin labo waxaan bulshada ugu baaqayaa oo kale inay ku cibro qaataan qaraxii daratoole ka dhacay magaalada Muqdisho kuwii ka horeeyay iyo kuwa lala maagan yahay ee saacada aynu hadlayno la qorsheynayo in loo geysto si loogu gumaado loogu xasuuqo loogu baabi'iyo naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda iyo hantidooda iyo wixii la halmaala ayna isu taagaan badbaadinta diintooda sharaftooda naftooda maalkooda iyo masiirkooda intaba sida ay ku badbaadin lahaayeen ay isu taagaan ayaan ugu baaqayaa lambarka saddexaad waxaan u baaqayaa culimada Soomaaliyeed oo ah dadkii dhaxlay ambiyada oo aanan ka gaabinin inay ku dadaalaan wax waxtar u ah ummadda tan ayagoo aanan manfaco kaga doonaynin jamaacadii ay doonaan ha noqdaan dariiqadii ay doonaan ha noqdaan mid walba meeshiisu ku mahadsan yahay mudnaantiisana uu ku leeyahay culimada waxaan leenahay waan ugu baaqayaa inaysan isku mashquulin si aysan fursad u siinin cadowga horarka ah oo aanan kala aqoonin culimiya caama aanan kala aqoonin ay isu kaashadaan badbaadinta dhiiga daadanaya ee waliba sida dayaca ku qubanaya iyo inay diinta ka waardiyeeyaan beenta laga sheegayo lagu baneysanayo wixii xaraamta ay ka dhigtay ayaan culimada ugu baaqayaa wixii masaa'il ah oo lagu kala aragti duwan yahay waxa loo baahan yahay si cilmi iyo cadaalad iyo culimanimo ku salaysan in looga wada hadlo oo gogol isugu yimaado ee aan loo dhaqmin sida caamadu ay yeesho oo kale afar dawladda iyo maamulada dalka waxaan iyagana u soo jeedinaynaa oo xasuusinaynaa in aysan jirin dawlad adduunkan saaran oo aanan lahayn caqabaad hortaagan iyo dhibaatooyin ay cilcilinayso dawladdeena marka waxaan xasuusinaynaa inaanu jirin cadow ka liito oo ka taag daran shabaab
oo ay ka hortagi lahaayeen haddii marka imtixaankeeniba uu noqday xoogaagaas yarka ah ee ammaanka qasahaya in laga hortago runtii imtixaan yar weeye oo loo baahnaa in libin laga keeno oo la huliyo libinta dagan ee meesha daleesha u taala dowladda ayna isu taagto oo meesha iyada ah laga gala taariikhda in cadowga isaga inta laga afjaro ummadda oo laga qabto ee waxa weeye la qoro baal taariikheed oo ummadda wax ku olo ah shan waxaan ugu baaqaynaa golayaasha xukuumadda iyo kuwa baarlamaanka iyo golayaasha kala gedisan ee dowladdu ay ka kooban tahay inay ilaaliyaan dhaartii ay magaca alle ku galeen shacabka hortiisa ee ku aadanayd inay ka shaqaynayaan danta dalka dadka iyo diinta taasoo mid aan adduunkana kula xisaabtamayno aakhirana alle hortiisa la isugu tagahayo dhaartuna waa wax aad iyo aad u culus ee hal iska ogaado qodobka lixaad dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay haysataa ciidamo aad iyo aad u tiro badan oo loo soo tababaray oo ku faraxsanahay waxa kale oo dalka jooga ciidamo ajnabi ah oo ku magacaaban inay yihiin ciidamo nabad ilaalin ah ciidamadaas oo la isku daray ma jiro cadow shisheeye oo dhinac xuduudaha ka soo jeeda oo maanta la hortaagan yahay oo laga difaacayo dalka dhiigiisa iyo siyaadadiisa iyo sovereignty-giisa iyo madax banaanidiisa intaasiba waxay mushaar ku qaataan inay u taagan yihiin inay soo afjaraan oo ay ka hortagaan qaraxyada ay maleegayaan koox yar oo waliba dhuumaalaysanaysa oo magaalada Muqdisho ku jirta inteeda badan sidaa darteed lama garaysan karo ciidamada inta fara la eg dadka kooban oo dhuumanaya ayay ka ilaalin waayeen hal magaalo haddaba waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay awoodeeda isugu geyso ilaalinta amniga iyo sugitaanka amniga caasimadda oo runtii ah qodax ku wada taagan ummadda Soomaaliyeed oo aynu dhihi karno Soomaaliya oo dhan maalinka maanta waxay u xayiran tahay ammaanka magaalada Muqdisho inuu sugmo haddii magaalada ammaankeeda la sugo macnaheedu waxay tahay mushkiladii Soomaaliya nus ka badan inuu xallismay haddii aanu sugmin wax ka soo wanaagsan oo meelaha daafaha laga sameeyo waxa laga yaabaa inuusan yeelanin raad la mid ah raadka ay leedahay magaalada Muqdisho haddii ammaankeeda la sugo oo amuraayadii iyo caasimadii dalka sida awadeed waxa loo baahan yahay in dowladdu ay xooggeeda isugu geyso in ammaanka la sugo ciidamada shisheeye ee dalka jooga magacay doonaan ha yeeshaan haddii aysan dowladda kala shaqaynaynin ka hortagidda xasuuqa ummadda looma baahna dowladdana waxa loo baahan yahay arrimaha noocaas ah inay dib u dhigato oo dib u eegto tallaabooyinka ay qaadayso lambarka 7 nolosha iyo ammaanka dadkeena ayaa mudnaanta koowaad iska leh waxyaabaha dhacayana waa musiibo qaran oo ay waajib tahay in ka hortagooda la isu kaashado loo midoobo sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa maamulada dalka ka dhisan madaxda axsaabta mucaaradka ah waxa weeye dalka jooga in ay ka tanaasulaan khilaafaadkooda oo ay dhinac ay dhigaan oo aan saacadan oo kale lagu loolamin khilaaf siyaasadeed oo lagu kala sadbursanayo meel looga soo wada jeedsado arrimaha ay isku waafaqsan yihiin ee badbaadinta ummadda ay matalaan oo mabda ahaan ay isku waafaqsan yihiin xurmada dhiigooda iyo waajibnimada badbaadadooda arrintaasna ay la kaashadaan dadweynaha Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxda dhaqanka culimada Soomaaliyeed ganacsatada aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka dhammaan qaybaha bulshada oo idil lambarka 8 waxaan dowladda federaalka ugu baaqayaa oo kale inay la timaado qorshe cad oo ku wajahan soo afjaridda ciidamada shabaab oo caadeystay burburinta wax alla wixii la dhiso markii xoogaa la joogaba inay la timaado qorshe cad oo ay bulshada kula shaqayn karto inay soo bandhigto oo aan laga qarinin bulshada waxa dhibaya ee haysta oo la soo bandhigo xogta cid walba oo ku lug yeelata xasuuqa ummadda tan xitaa haddii aan maanta wax laga qaban kareenin inay ummaddu ogaato cidda ka shaqaynaysa faldambiyeedyada oo gacanta ku siinaysa shabaab xaq bay u leeyihiin xarakada shabaab oo ah dadka ay farta ku gudan tahay waxtar la sheego oo maalinka maanta ah taakaba Allah ka dhige wax ku filan aanan ummadda u qabanin waxaan dhib ahayna aanan ugu filayn waxaan leenahay shabaabo intiina wax garanaysa waa aad ogtihiin in dhiiga dadka Soomaaliyeed aad xaqdarro ku daadinaysaan oo ku xasuuqaysaan tan labaad haddaydan diinta inkirsanayn waad ogtihiin dhiiga dadka oo si gardarro ah lagu daadiyo oo waliba ula kac ah
oo maxaa la yiraahdaa lagu banaysto inay tahay dambi la gala kan ugu weyn marka gaalnimada laga soo tago tan saddexaad inaad hadda xamar xukuntaan idin kama hor muuqato oo suuragal inaysan ahayn aqligiinu waa idin siin karaa midda afaraad ganacsatada magaalada iyo dadka miyigaba waxaad qasab kaga qaadataan xoolo aad iyo aad idinka badan oo baad ah haddaba su'aashu waxa ay tahay dadka muslimka ah oo haddana xigtada ah oo xoolahoodii oo dhan idin siiyey si aad naftooda ugu badbaadisaan rajo inaad xukuntaan ahna aydan ka qabin maxaad u dabargoynaysaan xasuuqooda waayo cidda ka faa'iideysa ee aad ugu danaynaysaan yaa idinka sokeeya oo aad dalka uga qarxinaysaan ugana qixinaysaan oo markay meesha banneeyaan u imaanaya oo meesha iyada soo degayo buuxinaya shabaab waxaan idin leeyahay fursadaad wali haysataan intay goorgoorta isdaba qabta allihidin abuurtay u toobad keena dambigan aad noociyeyseen ee aad ku soo celcelinaysaan ka laabta diintiina iyo ummadana u soo laabta ayaynu leenahay gabagabadii ganacsatada ayaa waxaan ugu baaqayaa waan xasuusinayaa inay yihiin hogaankii bulshada tan inay kaalin weyn kaga jiraan waxtarka ummadda tan culaysyada dadkeena qabsaday inay yihiin dadka ugu horeeya ee loola soo ciirsada markay dhibaato ay dhacdo intaa kadib waxaan xasuusinaynaa ganacsatada qaraxyada iyo toogashada joogtada ah ee dadkeena lagu hayo inay yihiin dhibaatada ugu weyn ee maanta dalkeena haysata waxaana la og yahay nimanka falalka geysta in waxa weeye xoolo la siiyo taasoo runtii nasiib darro ah haddaba waxaan leenahay ganacsatada xoolihii la bixinayay oo sida xaqdarrada la idinka qaadayay haddii aynan idinku ku badbaadaynin ehelkiina aanu ku badbaadaynin maalkiina aanu ku badbaadaynin dadkii magaalada deganaa oo maxaa la yiraahdaa camirayay aysan ku badbaadaynin in si kale loo fikiro miyaysan ka habboonayn in lacagta lagu shubo meel uu halaa ka imaanayo miyaysan habboonayn in la xoojiyo dawladda si ay ugu tabaraysato iska dhicinta iyo iska caabinta iyo kahortagga iyo soo afjaridda ee nimankan caadaystay ummadda baabi'inteeda miyaysan ka habboonayn in la sameeyo ciidamo xaafadeedyo ama community policing waxa la yiraahdo oo sharciyeysan oo naftiina ilaaliya ganacsigeena idin ilaaliya baadalna idinka qaadayo oo lagu baabi'inayo naftiinana idinka hor istaago miyaysan habboonayn in lacagtaadu ay ku baxdo meel naf lagu badbaadinayo aysan ku bixin meel naf lagu dilahayo oo waliba naf kale ma ahine naftaada nafta ubadkaaga nafta ehelkaaga nafta xigtadaada nafta deriskaaga nafta dadka magaalada ku nool hantidii aad abuureysay iyo guryaha dhisaysay lagu baabi'inayo miyaysan ka habboonayn in noolaynta iyo dhisitaanka loo isticmaalo lacagta waxaan ku soo gabagabeynayaa inuu caqligu shaqeeyo inay caqiidadu ina xukunto inuu cilmigu ina hago waxa dhacayana inaynu ku cibro qaadano fasatadkuruuna ma aquulu lakum wa ufawwidu amriya ila allah inna allaha basiirun bil cibaad